wawaray assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarta soo dhowaada waxaan eegaynay baryaha kan wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxayay Iran iyo Israel iyo Mareykanka oo waa dhaweyto ku soo biiray dagaalka haddii aan intaasba wada eegno waxa ii muuqata saakay waxa dagaal adag u dhaxmaray madaxweynihii hore ee dalka Ruushka Dmitry Medvedev oo hadda isaga account fiican ka haysta oo golaha amniga Ruushka chairman oo madax ka ah iyo madaxweynaha dalka Mareykanka dagaalkan ayaa waxa uu ahaa dagaal ay isku dhaafsadeen oraahyo xagga Twitterka iyo Truth social mediaha madaxweynaha dalka Mareykanka waxa dhacday in Dmitry Medvedev uu soo qoray haddii arrinku sidatan uu ku sii socdo oo isaga oo cambaareynayay dagaalka Mareykanka uu ku qaaday Iran waxa uu sheegay in ay jiraan wadamo Iran ku caawin kara madaxyada nuclearka ayuu yiri waxa marka warkii isaga ahaa uu soo gaaray ninkan nin iska hadlay ma aha madaxweynihii hore ee Russia dalka Russia xukumi jiray intuusan soo noqon xilligii yaraa oo u dhaxeeyay Putin madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa marka arrinkaas ka jawaab celiyay waxana uu sheegay in uu ninkii hore madaxweynaha ka ahaan jiray Ruushka uu nin waalan noqday buu sheegay madaxweynaha Trump ayaa waxa uu aad iyo aad uga xanaaqay ma waxan wuxuu qoray ninkan odayga ah ee madaxweynaha ka soo noqday Ruushka ma waxan buu ku hadlay mase ana moodayo dhahay ma waa ismoodsiis oo ana ismoodsiiyay maya wuxuu dhahay haddii uu sidaas u fakarayo in Iran lagu caawiyo gantaalo nuclear ah madaxweynaha Mareykanka wuxuu isticmaalay the N word oo uu ka waday nuclearka waxa uu dhahay waa eray lagu kaftamo waa in uusan ahayn waxan oo kale oo ah wuxuu sheegay Dmitry in uu qalad weyn galay hadii uu soo jeediyay in Iran ay jiraan wadamo ku caawinayo inay helaan madaxyada gantaalaha oo laga yaabo buu yiri in ay intay ku xiraan gantaalaha afkooda ay isticmaalaan so Trump ayaa aad iyo aad uga xumaaday hadalkaas kuna soo celiyay oo Truth social mediahiisa uga soo jawaabay madaxweyne Trump waxa uu qoray hadaan idin fiiriyo idin sheego wuxuu dhahay warkan ma ku hadlay mase ana moodayo dhahay hadii uu ku hadlay waxaan rabnaa uu dhahay hadda ii sheega si degdeg ah si aan uga falceliyo ayuu yiri waana loo sheegay waana soo qoray baa la yiri ninka odayga ah hadalkaas waxa kale oo uu de waa taqaanaan Trump uu alaabtiisii gashaday no wonder in uu yahay Putin madaxweynaha oo ninkan madaxweynenimadii laga qaaday oo uu ka waday wuxuu u dhaqmi lahaa si irresponsible ah mas'uuliyad la'aan ah buu u dhaqmi lahaa buu yiri Dmitry oo hadii uu dalka haysan lahaa waxay u ekaan lahayd in uu isaga siiyo gantaalaha afka lagu xiro nuclearka ah sababtoo haddaba hadii uu sheegayo in wadamo ay jiraan ku taageerayo Iran inay hesho madaxyo hadii inuu siin lahaa muxuu ku diidayaa buu leeyahay no wonder shaki igama gelin buu dhahay sababta looga ceyriyay in ay tahay mas'uuliyad darro shaqada waa taqaanaan Trump alaabtiisii uu ku darsaday waxa marka ka soo jawaab celiyay waxa ka soo jawaab celiyay ninkii Dmitry ahaa Dmitry ayaa waxa uu sheegay waxa cambaareynaya buu yiri dagaalka Iran ee ku qaaday Mareykanka uu ku qaaday Iran waxana uu sheegay isaga sidoo warka u dhiga waaye in lagu guul dareystay dagaalkaas oo sidii la rabay wax u dhicin waxa kale oo ku sii daray intaas Ruushka wax balaan ah oo uga yaala in ay siiyaan hubka sida baan wax u gumaada ee nuclearka Iran ma jiro dhahay because wuxuu dhahay annaga waxaan ka mid nahay wadamada non proliferation treaty ama sharciga qabanayo wadamada nuclearka leh oo haysta ayaa annagana
naqabanayo ayuu dhahay so wax plana oo aan leenahay oo ku saabsan in aan nuclear u geyno cidna kuma jirro dhahay laakiin arrinkaas wuxuu cadeeyay sida Israel oo kale Israel kuma jirto shuruucdan adduunka u kala qoran oo wadamada nuclearka haysto u kala qoran oo sharciga la yiraahdo non proliferation treaty oo aan la qaybin karin hubkaas laakiin wuxuu dhahay Israel kuma jirto waana nuclear power awoodna way u leedahay buu yiri so waxa aan ka hadlayo waxa waayo dhahay other countries might wadamo kale baa laga yaabaa inay siiyaan oo sida markaan sii barbaaray aan ku soo ogaaday laga yaabo wadan aan waxba u lose gareeyo aan haynin sida wadanka la yiraahdo North Korea ayuu u durxulayay waxa laga yaabaa North Korea oo kale inay hoos wax uga dhiibto Iran buu yiri laakiin annaga kuma jirro shaqana kuma lihin sidaas la mid ah wuxuu dhahay which once signed with US president is still in force for now the question is what comes next maxaa hadeer arrinkan xigi doona buu yiri Dimitri isaga iyo Trump maanta madaxa ay si fiican isula galeen hadii wuxuu dhahay aad ku tashanayso dhahay arrinkan oo ka suurta gashaba in hataa laga maqlo oo wax noocana maartay laga maqlo waa cambaareen tii ugu dambeysay aan ku cambaareynayaa buu dhahay odayga sababta aad shaqada ku weysay nawaaye buu dhahay marka hore hadii aad nin fiican oo mas'uul ahaan lahayd shaqada waa haysan lahayd marka odayga intaas ayaa maanta qac lagaga siiyay laakiin warkii wuu kala cadeeyay si hadaan nahay annaga Russia wuxuu dhahay Iran diyaar uma nihin inaan balaayo u dhiibno oo hoosta uga dhiibno laakiin wuxuu dhahay wadamo waxa jiro aan ka gabaneyn arrinkaas oo they have nothing to lose wax ka lumaayo male wax u goynayo male so Trump iyo odaga maanta asaasi isugu dhaceen tan kale hadii aan gallo wararkii ugu dambeeyay oo ka soo baxay dagaalka Iran iyo u dhaxeeyay Israel iyo hadda Mareykanka iyo qayb ay ka yihiin Mareykanka iyo aan iraahday iyo Iran waxa hadda wada ogtihiin aan warkii degdegta ah ay ugu dambeeyay oo in Mareykanka saldhigyadiisii uu ku lahaa Iraq iyo Qatar la weeraray Iraq iyo Qatar marka weerarkoodii waxa ka soo baxay oo ugu dambeysay horta wax ku dhintay ma jiro baa la yiri wax ku dhintay ma jiro wax ku dhaawacmayna ma jiro hadii aan marka idin dulmaro siyaabaha ay wax u kala jiraan right now hadeer akhbaartii ugu dambeysay wadanka Syria waxa ka joogta la yiri ciidamada Mareykanka 2000 Iraq waxa ka joogta base-kooda 2500 Kuwait waxa ka joogta campga waxa la dhahaa Arifjan base Al Salam air base Kuwait waxa ka joogta 13500 Jordan 3813 Sacuudiga 2700 Qatar 10000 Bahrain 9000 United Arab Emirates oo Imaaraadka ah 3500 ayaa ka joogta soo ciidamo 45000 ah ayaa Mareykanka waxa ay ka joogaan sida la sheegay oo la cadeeyay oo dalalka qaliijka oo intaas ay kala ah marka labada meel oo wax ku turtureen waxa waaye Qatar iyo wadanka dariska la ah Iraq waxa hada wax ku noqday male waxa kale oo la sheegay in gantaalada badankood ay soo rideen qadariyiinta saas ay u qoraysaa AFP-da so Mareykanka madaxweynaha dalka ayaa ka hadlay waxa uu sheegay waxaan rabaa in aan uga mahad celiyo dhahay wadanka Iran in ay nasiyeen advance warning digniin horey ah in ay nasiyeen taas oo noo sheegtay buu dhahay inay weerar soo qaadayaan isdiyaarintoodii iyo howlahoodii marka waa uga mahad celinaynaa buu dhahay waxa ay soo tuureen buu yiri 14 gantaal 13 ayaan dhulka dhignay halna waa iska daynay because sababtoo ah wuxuu u socday wuxuu yiri was headed to non-threatening direction wax oo meel aan waxba dhibaato u geysanaynin oo cidla inuu ku dhacayo noo muuqatay buu dhahay xagaas ayuu u sii jeeday kaas waa la iska daayay laakiin 13 ayaan qabanay buu dhahay waxaan ku faraxsanahay buu yiri in tweetkiisa hadda uu soo qoray in aan idin report gareeyo
qof Amerikaana oo wax ku noqday ma jiro, wax damage ah oo dhacayna ma jiro. So there's no damage and there's no Americans harmed. qof wax ku noqdayna ma jiro ayuu dhahay. waxaan intaas u raaciyay waxa muhiimadda ah in systemkoodii ay kusoo duulaan tageen laakiin waxba uu tari waaye. Hopefully wuxuu dhahay there's no further hate, cadaawad kale iyo xumaan ma jirayso ayuu dhahay. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo Iiraaniyiinta inayna siiyeen early notice, ogeysiis hore, taasoo kasii dhigto dhahay in aan kasii diyaar garowno oo ciidamada meesha aan kala sii baxno oon meel cidlo ah ay wax kusoo turtuuraan. waxaan rajaynayaa buu dhahay in hadeer wadajir iyo nabadgelyo lagu wada noolaado gobolka. waxaan sidoo kale I will enthusiastically encourage waxaan yahuudana ama Israa'iiliyiinta aan ku dhiirigelinayaa buu dhahay in ay iyagana nabadda qaataan. Thank you for your attention in this matter. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa intaas qoray. waxaa hadeer 38 daqiiqo ka hor iyana soo dhacay in Dubai markii hore flightska oo dhan laga kansalay airportada, cabsi ay ka qabeen maadaama ay daris leeyihiin Iran, cabsi ay ka qabeen in gantaaladan ay wax ka soo gaaraan airportada Dubai oo dhan waa la xiray. haddase waxay sheegeen in full operation uu soo noqday, uu buuxo si buuxda oo airportada hadda u shaqeynayaan. marka wali waxaa dhici karaa la dhahay delays, daahmo way dhacaysaa, cancellation waa iska dhacayaan, flights la cancel iyo waxaas, laakiin wuxuu dhahay waxaa la soo xaqiijiyay hadeer in Dubai ay fully functional, back to function ay tahay, ay shaqeynayso. So Mareykanka weerarkii lagu soo qaaday saldhigyadiisa, labadaas saldhig intaas ayuu ka sheegay. waxaa kale oo isna hadlay Ayatollah Khomeiniga, kaas oo isagana cadeeyay in dalkiisa aysan marnaba isdhiibaynin. So hadda waxaa moodaa in Iran iyo Mareykanka ay qalqaalinayaan kadib jugti culuseed ee ay geysteen, inay qalqaalinayaan in nabad lagu wada noolaado oo arrinkan wada hadal laga galo, nabadna laga qaato. marka Iran ayaa hadeer isira waalayso, waxaana ay leeyahay ninka odayga ah ma ogolaan doonu dhahay in anaga naloo cagajugleeyo oo maaragtay this is the logic of the Iranian nation. dadka Iraniyiinta ah maskaxdooda wuxuu u shaqeeyaan buu dhahay in loo cagajugleeyo, inay isku dhiibaan iyaga oo aan diyaar u ahayn ma dhacayso bay yiraahdeen buu yiri ninka odayga ah oo Khomeini isagaaba hadda isyara walwaalayo. update-kii u dambeeyay marka waa intaas. waxaa insha Allah taala wixii ka soo kordho dagaalkan iyo arrimihiisa waa la socon doonaa. waxaa kale oo aan eegi doonaa insha Allah in aan ogaano Mareykanka, waxaan rabnaa inaan ogaano haddii ay dhacdo in uu isna tallaabo kale uu qaado, bal waan arki doonaa. saakay waxaa kor u kacay stock marketka wuu fiicnaa kadib markii wadamada soo saaro gaaska ama oilka, crude oilka, ay hoos u dhigeen si ula kaca qiimaha lagu kala gato oilka. US crude oil fell by 7% hoos u dhacday, $68 baa la kala gadanayay fuustadii. marka waa suuqa maanta wuu fiicnaa. waxaan filayay in haddii maadaama weerar uu dhacay weekendiga laysuna jawaabay in maaragtay suuqa markuu soo laabto New York stock exchange-ga hoos u dhici doono, laakiin maanta wuu fiicnaa aad iyo aad intii laga filayay wuu ka fiicnaa. gaaskana wuu sii raqiisay oo $68 ayaa la gadayay. marka madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa hadda right now 30 daqiiqo ka hor wuxuu soo qoray congratulations world, it's time for peace, President Donald J. Trump. adduunka ayuu u mahad celiyey oo dhahay uu ka wado de hanjabaadii ka soo socotay iyo threatkii ka soo socday Iran waa laga taqluusay buu ka wada camal. hadeer it's time for peace in all caps. wuxuu ku soo qoray website-kiisa Truth social mediahiisa ayuu ku soo qoray. wuxuu sheegay in nabad hadda la qaato. So Mareykanka iyo Israel saa idin sheegay waxay dabada ka riixayaan kadib weerarkii ay ku qaadeen Iran iyo wixii isdaba socday in hadda miiska wada hadalka ay ogol yihiin in nabadgelyo lagu dhameeyo wax kasto ay rabaan. So waxaan fiirin doonaa Mareykanka
cagajuglayntiisii iyo bootadii uu waday ahayd haddii ciidan aan leenahay iyo base aan leenahay iyo interest oo danaheena gaarka ah aan ka leenahay Middle Eastiga la soo weeraro waxaan bixin doonaa jawaab culus bal waxa ay ka sameeyaan inkasta oo intii kadib hadeer Twitterka madaxweynaha aan ka arko inuu raadinayo wada hadal 30 daqiiqo ka hor ayuu soo qoray it's time for peace waa xilligii nabadda lagu wada noolaan lahaa adduunkana waa u mahad celinayaa buu dhahay waana u hambaliyeynayaa kulli wuxuu ka wadaa hambalyadaas in nuclear programkii Iran inuu ku faanayo madaxweynaha Mareykanka in uu soo dhameystiray sheekadana halkaas lagu xiro nabadgelyo la kala qaato Israa'iilna waxaan u sheegayaa uu dhahay in ay iyadana nabadgelyada ay qaadato marka intaas ayaan maanta insha Allah taala ku soo koobayna programkeenan wixii ka soo kordha oo updates ah waa sii deyn doonaa don't forget to subscribe haddaad nagu cusub tahay like and share this video haddii aad hore noola joogtayna waa mahadsan tahay sii share garay hadduu ilaahay idmo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh